base ciwaankeedu uu yahay tuug saqajaan tuuggu wuu kala saqajaansan yahay subxaan allah. tuugga qaar baa maaragtay saqajaannimadu waxay ka gaadhay inuu dafo oo uu xado islaamaha tamaandhada iyo xabuubta iyo basasha suuqa la fadhiista buu dafaa owlahaada. midna waxaa la dhahaa magaciisa xariif magaalo oo wuxuu xadaa bangiyada iyo dowladaha iyo meelahaasu isagu wax ka raadsadaa subxaan allah. nin baa wuxuu ahaan jiray tuug saqajaan, wuxuu xadi jiray nacuudu billaah dadka dhintay kafantoodu xadi jiray. marka xabaaluhu qodi jiray markuu qofku uu dhinto ayuu kafanta ka xadi jiray. dabcan dee waagii hore dadku maryo fiican ma haysan jirin. kafantan maradan cadi waxay ahayd huga keliya la gashto ama guntin ama go' bay noqon jirtay. marka kolkaa wuu iibin jiray markiiba, ama halkaasa baac mushtari iyo ganacsi uu ahaa. subxaan allah subxaan allah. waxaa ka baxsan waayey dadkii dhintay, kuwii noolaa iska dhaafeen. maalintii dambe ninkii xabaalaha qodi jiray baa dhintay subxaan allah. markii uu dhintay bay dadkii baa lacnaday, way lacnadeen oo way habaareen subxaan allah. wiilkii uu dhalay ayaa isagana waxaa loogu yeedhi jiray ibnu nabash. waa ninkii aabihii uu xadi jiray, kafanaha xadi jiray subxaan allah. markaa farsamuu kani wuxuu hi aniga horta maxaa laygu caaya aabbaha xabaaluhu qodi jiray oo kafanuhu kala soo bixi jiray. waa inaan farsamo keenaa iyo xeelad aabbahayna lacnadan iyo habaarkan looga daayo looguna duceeyo, anigana magacan foosha xun ay raacay uu iga hadho. kolka cid buu la tashaday baa la yidhi o waxaa lagu yidhi ninkii aabbaha ficilku uu samayn jiray wax ka daran samee. okay, aabbihii dabcan markuu xado kafanta uu xado meydkaa wuu asturi jiray oo xabaashi buu ku celin jiray. isagu wuxuu sameeyey intuu meydkii kasoo saaray xabaashi oo kafantiina ka saaray ayaa meydkii oo qaawan ayuu banaanka kusoo tuuri jiray. dadkiiba subaxa markay soo kacaan meydkoodii ay aasteen isagoo qaawansaa banaanku yaalla. kolkaasay waxay dhaheen dadkii raxima allahu saariqa lawal, ilaahay tuuggii hore allaha u naxariisto. subxaan allah subxaan allah. nabigeenu wuxuu inooga warramay calayhi salaatu wasalaam nin sidaasoo kale ahaa oo dembiga intaa la eg, jariimada iyo dembiga intaa la eg galay subxaan allah, oo kaana yanbushu lqubuur, xabaalaha qodi jiray oo kafanaha kala bixi jiray. ninkaas dabcan xadiiskan wuxuu ku yaallaa waa saxiixulmuslimka iyo saxiix bukhaari iyo asxaabu sunan oo dhan baa soo warinaya. waa xadiis saxiix. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninbaa asrafa calaa nafsihi, naftiisa ayuu ku xadgudbay. riwaayad kalena waxay tilmaamaysaa inuu xabaalaha qodi jiray oo uu kafanaha kala soo bixi jiray. markaa ninkiibaa markii uu dhimanayay ayuu carruurtiisiiba weydiiye wuxuu ku yidhi waryaadhahen anigu sidee baan ahaa? ubadkiibaa waxay dhaheen aabbo nin wanaagsan baad ahayd, waad noo wanaagsanayd oo waad noo fiicnayd. subxana iyagu dee wixii daahira u muuqdun bay arkayeen, aabbahoodo lacag siinaya xoola siniyun bay arkayeen. waxay dhaheen aabbo wanaagsan baad ahayd. ninkiibaa wuxuu yidhi haddaba anaa naftayda idinka huba, weligay camal wanaagsan iyo shaqo fiican weligay ma qabanin. subxaan allah. ilaah baan ku dhaartee wallaahi lain qadara allahu calay, haddii ilaahay uu isoo qabto macnaha layucadibannii cadaaban maa cadabahu axada min alcaalamiin, ilaahay wuu i cadaabayaa cadaab aanu weligii qof caalamiinta ka mid aanu cadaabin. dembigan geli jiray subxaan allah. dee jariimada u fiirso u geli jiray xabaal qof in bani aadama intuu kafantiisa waxado. subxaan allah subxaan allah. jariimo ka weyn ma jirto. qofkuna haddii uu qofkii meydka ahaa ku waano qaadan waayo, muxuu ku waano qaadanayaa iyo kale? subxaan allah. kafaa lilmowti waacida, geerida ayaa kugu filan ama qof kasta ugu filan inuu ku waano qaato. laakiin qalbigii inuu adkaaday iyo qallabsanaaday bay tusaysaa subxaan allah. kolkaa wuxuu dhahay ilaahay haddii uu iqabto wuu i cadaabaya cadaab aanu weligii cid kale aanu cadaabin ayaa la cadaabaya. markaa wuu quustay ninkaasi, aysa min raxmat illah, naxariista ilaahay buu ka quustay. kadibna wuu la dardaarmay ubadkiisiyo wuxuu yihi markaan dhinto iguba, waad gubaysaan, jidhkaygaad gubaysaan. markaan gubtoon dambas noqdo, dambaskaas laba qaybood baad ka dhigaysa. dambaskii soo hadhay qaybna maalin ay dabayshu daran tahay hawada saa u raaciya, waaye qaybna intaad qaadaan waxaad ku ridaan badda ku rida. ninkii wuu dhintay, sidiiba ubadkii yeeleen,
dambaskiisii bay qaybna dabayshay raaciyeen, qaybna waxay ku tuureen badda ayay ku tuureen. nebigii ilaahay wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam, ilaahay baa la hadlay dabayshii iyo baddii oo ku yidhi yaa riix, ammaanadii lagu dhiibtay keen. yaa baxru, bad yahay waxaad adiguna keentaa ammaanadii lagu dhiibtay. mid walba markaa unugyadii dhex galay ayay isu keentay. subxaan allah, ninkiiba mar qura wuxuu dul taagan yahay oo uu hor joogaa ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbigiisii abuurtay. rabbi baa markaa la hadlay oo wuxuu yidhi war maxaa kugu kalifay arrinta sidaa iyo sidaas addoonkaygiiyow? wuxuu dha yaa rabbi, khashyatuka, cabsidaada ayaa igu kaliftay. ilaahay wuxuu dhahay waan kuu dembi dhaafay, ghafartu laka, waan kuu dembi dhaafay maadaamaad ilaahay ka cabsatay, cabsida aad ilaahay ka cabsatay darteed baan kuugu dembi dhaafay. subxaan allah, waa ilaaha weyn ee qaadirka ahee ghafuururaxiimka ah ee qur-aankiisana ku dhahay subxaanahu wa tacaala qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah. nebi allah waxaad ku dhahdaa addoommadaydow, yaa cibaadii, addoommadayda, aladiina kuwaasoo asrafuu calaa anfusihim, naftooda ku xadgudbay, kabaa'ir iyo dembiye waaweyn galay, nacuudu billah, oo fara badan galay. laa taqnatuu min raxmat illah, ilaahay naxariistiisa ha ka quusan. dabcan ninkan laba arrimoodba xadiidkaas waa xadiis saxiixaan ka warramaynaye, laba arrimoodba culummadu way ka hadlaan. waa midda koowaad ee markii uu yidhi ninku lain qadara allahu calay, haddii ilaahay uu isoo qabto, subxaan allah, qudradda ilaahay buu ka shakisanaa bay dheheen, ama qudradda ilaahayba muu aaminsanayn. qofkuna haddaanu qudradda ilaahay aaminsanayn waxay dhaheen maxay, waa sifadii ilaahay baanu aaminsanayn oo markaa wuu ku gaaloobaya. sidoo kale mushkilada kale jirtay waxay ahayd ninkani wuu quustay, leanna qofka quusta ilaahay naxariistiisa ka quusta waa ruux gaala. laa tayasu min rawxi illah, innahu laa yayasu min rawxi illahi ila alqowmu lkaafiruun. qofka ka quusta naxariista ilaahay waa ruux gaaloobay. haddaba culimmadu maxay kaga jawaabtay labada qowl? waxay kaga jawaabtay waa midda koowaade, ninkani kamuu gaaloobin qudradda ilaahay oo muu dhihin ma aaminsan inuu ilaahay sidaa iyo sidaa yeelayo, ee jahli buu ahaa bay dhaheen. jaahil buu ahaa, yacni muu garanayn, wuxuu islahaa maxay ilaahay baad ka baxsanaysaa subxaanahu wa tacaala. sidoo kalena cabsida uu ka cabsaday ilaahay ee uu yidhi ilaahay baan ka baqanayaa, ee uu yidhi ilaahay hadduu ii qabto oo ii cadaabaya, cadaab aada u daran buu cadaabayaa, wuxuu qirtay horta dembigii uu galay, waa kow. ta labaadna wuxuu qiray inuu ilaahay yahay cidda wax cadaabaysa. subxaan allah, iyo cabsidaa iyo baqdintaa gashay awgeed ayaa laga faa'iidaysanaya oo laga qaadanaya oo daliilka ku jirta ay tahay inuu ninkaas ilaahayna rumaysna, gaalna aanu ahayn. subxaan allah, cabsidii ilaahayna ay gasho. marka cabsidii ilaahay ilaahay ka cabsida awgeed buu ilaahayna subxaana wa tacaala dembiga ugu dhaafay. marka halkan waxaan ka qaadanayna ka faa'iidaynaa kow, dembi kasta oo aad gasho intuu doonaya ha leekaado, marka hore ha gelin, hana u dhowaanin dunuubta iyo kabaa'irta. laakiin haddii aad gasho, shaydaanku yaanu ku gaadhsiinin maxay, xaddil ya-si, inaad quusato oo aad ka quusatay inuu ilaahay dembiga ma dhaafi karayo. ilaahay wuu dhaafi karaa wax walba uu dhaafi karaa subxaanahu wa tacaala. xadiid kaleu nabigeena inooga warramay calayhi salaatu wasalaam, nin dadkii inaga horreeyey oo reer bani israa'iil ahaa, camal midh uu qabtay ma jirto, yacni wax khayra lam yacmal khayr qad, weligii yaabidkii camal khayra muu qabanin. bal qiyaas, adigu camal khayra weligaa wax waad qabatay soo maa? subxaan allah, ugu yaraan janaase muslim baad raacday, isagu weligii wax khayr uu qabtay ma jirto. subxaan allah, keliya wuxuu qaban jiray buu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam, wuxuu dadka ammaahin jiray, xoolo iyuu lahaa, marka xoolaha markuu dadka ka doonayo ayuu wiilka u adeegaya wuxuu ku dhihi jiray, qofkii amaahda maaragtay ay ku raagto ama daciifa ama tamar yar, ka daa oo ka saamax ama ka dhaaf ayuu ku dhihi jiray. dabadeedna ninkaasina wuu dhintay. rasuulka ilaahay wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam, ninkii baa la weydiiyey war camal khayr oo qabatay ma jira? wuxuu ihi maya. wuxuu ihi wadigii dadka daynta ka dayn jiree, aniguna maantaan kaa daynayaa buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala, cadaabkiisii iyo ciqaabkiisii. marka ilaahay naxariistiisu way ballaadhan tahay, raxmadiisuna way weyn tahay. kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba rajeeye naxariistiisa allaha naga yeelo. jazaakum allahu khayran, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu.